taliska ciidanka Mareykanka Afrika ayaa sheegay in duqeyn ka dhan al-shabaab ay ka fuliyeen meel magaalada Boosaaso ee gobolka Bari u jirta 26 mayl. duqeyntan oo dhacday 2 bisha Juun ayuu Mareykanka sheegay inay ku dileen 27 dagaalyahan oo ka tirsan xarakada al-shabaab. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka Afrika ayaa lagu sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo duqeynta ka soo gaaray dadka shacabka ah ee ka agdhow goobta weerarka ka dhacay. Puntland ayaa dhawaan sheegtay in weerar ay qaadeen dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab ay ku dileen 41 dagaalyahan. al-shabaab ayaa 2 bisha Juun weerar ku qaaday saldhigga ciidamada Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Bilqadar, waxaana la rumaysan yahay in weerarkaasi kadib ay dhacday duqeynta Mareykanka uu sheegay inuu ku dilay 27 dagaalyahan oo ka tirsan xarakada al-shabaab. Mareykanka ayaa horay weerar cirka ah oo ka dhana wuxuu u fuli jiray ururka IS iyo al-shabaab, waxaana inta badan weerarada uu ka furi jiray buuraha galgala ee deegaanada gobolka Bari ee Puntland. dhinaca kale degmada wadajir ee gobolka Banaadir waxaa maanta isku rasaasiyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. inta la xaqiijiyay la askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa israasaynta ku geeriyootay halka qof kale oo shacabana uu ku dhaawacmay. israasaynta oo ka dhacday xaafadda Xalane ee degmada wadajir ayaan la ogeyn sababta rasmiga ee ka dambeysay. maamulka degmada wadajir iyo laamaha ammaanka gobolka Banaadir oo aan la xiriirna ayaa inoo suurtagelin inaan wax ka weydiino israasayntaas. Cabdishakuur Maxamed Xasan, wararka SABC TV, magaalada Muqdisho.